Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي قالقة كحر يوتيوب channel كي فيسبوك بيجي قفل بفيديو كان قاعد لمانتين كل جديد عليه قالقة إن شاء الله يو وحنا نكسر وين هذا سمراء قاعد على اليوتيوب channel اللي على الفيسبوك بيج أنت أصحابي وحنا نكعس أنا عملت كاستو أديك دعونا في يوتيوب channel من فيسبوك بيج إن هاد كان وصباغته وحنا كده هذا يوتيوب channel كي دعونا سنة بليز فيسبوك بيج مو هذا فيسبوك بيج كأورنتي فيديوز كأردن أنا بدي هذا أديك دعونا سنة بليز كوسابير يوتيوب channel كنا واسقنا سمراء اسكمت وحق قرن فيسبوك بيج أصحابتي قالقة ولي سودوي أصحابتي نقعد كعس برنامجنا نقعد مقالدنا نقعد يوتيوب channel كنا نقعد فيسبوك بيج كنا أصحابي وحنا نكعس أنا داتين أصحابتي عصبت إن channel كنا سبسكرايب كردان بالكنا فرتان صدر صوتان فيديوز قدام بيان صوري دون إن شاء الله دي لازم سلسلة أصحابي وحنا نكعس أنا فيسبوك بيج كنا لا جريسان سيدو كنا نسوي فلو جريسان إن شاء الله دي لازم مو سيدا سلسلة أصحابي وحنا نكعس أنا الفيديوز كيسي شير جريسان لا جريسان كم أنت نوري بتعمد دينه هزام واحتلام سلام حتى سؤال النقطة إن شاء الله دي لازم حنسوي دون أنا كجواب سؤالينا بإذن الله الكريم. أصحابتي قالقة من بدن وادين كمية ayaa waxay soo weydiinayaan in video ka soo sameeyay Mareykanka ku imaaday barnaamijkan ku guuleystay process-kan soo maray interview-ga sidii laga qaaday sidii oo ahaa macnaha maxaa la process-ku si ay khibrad uga qaataan ama macnaha maxaa la experience uga qaataan asxaabi haddii aad asxaabtis ka mid tahay su'aalaha soo weydiinaysa runtii video balaaran ayaan ka sameeyay sidii aan ku soo maray process-kii iyo wixii oo dhan haddii aad doonayso video-gaas waxaan ku dhaafay comment section-ka ama description section-ka marka video aan sameeyay sabab aan video kale uga sameeyay ma jirto marka video-gaas ayaa daawo doontaa insha Allah hadii aad madad process ka sarabto iyo sidii aan ku yimid iyo sidii macnaha maxaa la process-kan u maray interview-ga iyo wixii hore ugu sheekay iyo si guud program-kan ku yimid aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabtي qaliga waxaa jirtay maalmihi la soo dhaafay video aad iga sugaysay runtii hal video xitaa maaha laba video saddex video ayaa iga sugaysay laakiin baaritaan ayaan kugu maqnaa waxaan laga soo baanadegin oo baaritaan laga sameeyay oo aan la soo hubin waxaan horta inay shaqeynayaan in kala ma wanaagsana inkastoo mararka qaar ay dhici karto inaan kula wadaago waxa aan shaqeynay sababtoo ah waxa laga yaabaa in aqoontaydu ay gaaban tahay laakiin waxa oo dhan waxaan u jeedaa dadaal ayaan u sameynaa waxaan rabaa asxaabtii walaalihii sugay inaan wax fiican u soo bandhigo marka haddii qaladaad iga dhacaan ulijeedku maaha inaan ugu talagalay laakiin waxa weeyaan mararka qaar waxaa dhici karto inaan qalad sameeyo bini'aadan ayaan ahay adiguba qalad uu ka dhacaa okay asxaabtii qaliga waxaad iga sugaysaa inaan soo shaqooyinka sida loo apply gareeyo website-da laga raadiyo wax inaan soo إن شاء الله ودي الله المومنت وحنا دين وضع unique way عشان كورة سكري سو كندا أدوكرة سكري سو ليبا برنامج كذا نقول لا جرنا يكون immigration pilot إن شاء الله ودي الله مو برنامج أصليان وحنا نسودنا unique way إسكاه إن بارتان بدنا ينسميه كنتي إن وحنا فهمي مركز كابلا جرينة الشقة ويب سايت الدولة ده سيدا تشاب بانك وكله سيدا إن يكون government ويب سايتس وكله إن إنسان علشان effective هين أو إنسان سامي يلين إن جدا مركز إنسان effective هين وحس effective كهين دولة ده علشان مين انترتين جرينة سو infrastructure كان يصير دتك يوم معناه محلها إن سهلدان يدك وسهلين شقوينكي إن أبلاي كريان بدن كا مع عاونيسو دتك إن فورناليسكا أما دتك معناها محل ودن كبنانكي كسو أبلاي كريان سببتا عن ساس وقف فكرة وحيد هاي دولدو ودولدي إن كندا وإحنا عاونيسا سيتيسنس كده يدتك إن بي آر كيستو أما برمن ريسيدنسي كيستو لكن marka waxaan u fikiray inay jirto inay jiri karto ama si kale anagu aan shaqooyin u raadsano marka waxaan go'aansaday inaan baaro kambaniyada waaweyn ee wadanka Canada wadi fantiinayaan marina wadanka Canada qaasatan gobolka Yukon marka kambaniyada ama macnaha maxaa la hayay shirkaduhu ama sida wax soo taqaanaba waxay leeyihiin website u gooni ayaga website marka information koodi dhan ayaa ku jira haday shaqo rabeen haday macnaha maxaa la hayay wax kasta ay rabeen marka waxaan geliyay oo adiguna aad sameeysaa Google ka daadisa marka waxaad gelinaysaa kambaniyada ugu waaweyn soo kale waxaad gelinaysaa top 10 companies in Yukon oo kale ayaad gelinaysaa marka kambaniyada magacyadooda ayuu ku tusaya magaca kambaniga ayaan soo qaadanaya Google waa Google gareynaya official website kooda ayaan tagaya official site kooda markaan tago kadibna waxay oggolaanaysaa information kooda inaan access gareeyo haday shaqo rabeen haday dad rabeen haday macnaha maxaa la projects haystaan ayaan insha Allah hadii la aan raadiyaa ama aan raadin doona insha Allah hadii adin garasa sameeyo okay marka markaas aad samayso waxa ku fududaanaysa inaad kambaniga la xiriirto oo kambaniga first hand waxaan u jeedaa qofkii asagu wax rabay inaad la hadasho ayuu ku fududaanaysaa laakiin marka dawladii la hadasho oo dawladdu badanka waxay soo boost gareynaysaa shaqooyinka dadka Canadianka ama citizenska loogu talagalay that's why ay ugu qoran tahay meesha hoose waxa shaqadan soo intooda badan wali way jiraan shaqooyin badan oo aan ku qornayn laakiin intooda badan shaqooyinka waxa hoos ku qoran in macnaha maxaa la dhahaayay shaqada loogu talagalay dadka Canadian citizenska ama dadka BR ka ama permanent residency ka haysto waxay yiri dadku shaqooyinka ama macnaha maxaa la shaqooyinkooda kambaniyada shaqooyinkooda waxay ugu boosti karayaan website-yada dawladda ama macnaha maxaa la hayay website-yada public waxay ugu boosti karayaan waxay rabaan baahidooda ayaa degdeg ah waxay rabaan inay macnaha maxaa la si degdeg ah ay shaqaale u helaan marka laakiin companies websites kooda wax walba ay soo dhigaan wadi faantayaan malena marka waan baaray
insha Allah hadii laad shaqo ayaan qof u apply gareyn doonaa dadkii aan ka balan qaaday marka waad arki doontaan insha Allah hadii laad sidaan u apply gareynayo waan instaan insha Allah hadii laad waxa jira kambaniyal waaweyn runtii oo Yukon ku yaala ama Canada ku yaala ama meel kasta oo gobol kasta oo aad shaqo ka rabto ku yaala markaas oo programka aad apply gareynayso uu yahay marka kambaniyasha waaweyn waxay rabaan نوع والبو شغاله هذا تاني سودانو كان ان شاء الله دي لازم وحي ربطا كونستراكشن وحي ربطا اكاونتنت وحي ربطا كلينرز وحي ربطا كوكرز كوكن معناها محل دad كوكسا انا جيدا كوكس كم حي كربطا وحي leedahay shaqaale aad u fara badan oo 10 kun macnaha maxaa ka badan 50 kun ka badan ayay kambari walaad marka waxay u baahan dad cunto u kariya markii site laga shaqeynayo darbiyo kale ayay dhisayaan arkay darbigaas ay dhisayaan oo kale ayay dad cuntada u kariya dadkii dad meeshii nadiifiya waxa soo dhan ay rabaan oo waliba joogta ah ama macnaha maxaa permanent job ah oo aan ahayn temporary aan ahayn marka asxaabi waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad research sameysaan hadaad shaqo Canada ka raadinayso shaqo inaad Canada ka heshaan wax fudud ma barnaamijka aan sheegay fiisaha lagu tagayo wadanka Canada waxa sal u ah shaqo ayaa sal u ah shaqo ayaa ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan Yukon immigration bayad waxa weeyaan shaqo insha Allah hadii laad barnaamijkan waxaan ku soo gabagabay doonaa video kale oo ah markii aad hesho wixii aan ka hadalnay Soomaha processka niyada ku hay processku wuxuu ahaa barnaamijkan intii hore ila socotay intaan hore ila soconnaa insha Allah hadii laad mo aqoon hor noqoto wuxuu ahaa horta marka hore inaad work permit aad hesho work permit ayaan dhihnay aad hesho job offer inaad hesho job offer kamid hesho dawladda iyo employer-kaaga ama company-ga ku siiyay job offer-ka ayaa waxay soo saari doonaan nomination letter iyo support letter ay soo saari doonaan markay soo saaraan ayaad apply gareyn doontaa ayaan idhi Soomaa marka sida loo apply gareeyo application-kaas waxyaabaha laga rabo waxaad lagaaga doonayo inaad calashan ku qorto wax oo dhan insha Allah hadii laadmo ayaan video ugu dambeeya uga hadli doonaa waana video ugu dambeeya kaasi barnaamijkan wixii aad su'aalo ka qabtaan maybe inaan entertain kareyno ama aan isku dayno inaan ka jawaabno laakiin video ugu dambeeya ayuu noqonaa insha Allah hadii laadmo saxaabado kale waxaan sheegayaa in marka laga hadlayo Canada aan shaqo ka hesho ama dadka qaar waxay arkaan wax walba easy u arko dad badan ayaa ku yimid waa sax sanad walba waxa ku yimaada in ka badan waxa ku barnaamijyadaas marka laga hadlayo Yukon kaliya maaya marka laga hadlayo express entry nomination professional nomination Atlantic immigration pilot waxa dhan marka la isku daro waxa ku yimaada in ka badan 100 kun oo qof ayaa ku timaada ee wadanka Canada marka waxaad ogaataa wax easy ma jiraan waxaan arkayay nin أجنبي أو ودن كندا كيمد أو كهلا يا سيدا أو كيمد كندا وحنا بلاقي ريو over إن كبدن شام بقول أو كن أو شقاء أنا بلاقي ريو مالنتين وحنا بلاقي رينا يورو ويران بقول شقاء أنا بلاقي رينا مركز أدو إن أدخل بعد معناه محلا كده تو waxaad ka soo qabsanaysa inta ama aad u fudud ama afgooyo aad gaari afgooyo raacaysa ma hoosh waa adag tahay waxa laga rabaa inaad dadaal samayso aadna nasiibkaaga iyo aqoontaadana insha Allah hadii lahayd ma ku tiirsanaato okay marka dadka qaar waxa si sahlan u arkay si sahlan wax sahlan ma jiraan way sahlan yihiin marka loo fiiriyo barnaamijyadu way kala sahlan yihiin oo calashaan kan wuxuu ka sahlan yahay kan wuxuu ka sahlan yahay kan uu ka shuruud adag yahay kan oo waxa loogu talagalay shaqaalaha loogu talagalay ayaa kala duwan shaqo loogu talagalay ama barnaamij loogu talagalay engineer iyo barnaamij loogu talagalay qof dhulka nadiifiya ama faryaamo iyo waxaas loogu talagalay way kala adkaanayaan Soomaaliya labada barnaamij isku mid ma marka waxaan laga rabaa inaad dhabar adeeg muujisaan inaad shaqooyin badan apply gareysaan barnaamijyada oo dhan wada fiirsan insha Allah dilaad okay marka insha Allah hadii aan saxaab waxaan ka tusinaa website-ka company-ga aan tusaya insha Allah hadii laadmo kadibna hadii laadmo waad soo shaqooyinka waad ka soo apply gareey doontaan waxaan tusaya sida loo apply gareeyo rasmiga wali kama aan hadlin laakiin mar ayaan rasmiga ka wada hadli doonaa insha Allah hadii laadmo rasmi ayaan hayaa qofkan oo apply gareeyo rasmi ayaan hayaa marka rasmigaas ayaan insha Allah hadii laadmo waxaad weydiinaysan Soomaa sida loogu dardada waxay dhahayeen kala tusaale markii aan si email-ki company-ga ayagu email company-ga haysta ay waxay leeyihiin noo result ayuu soo saaray nooma shaqeynayo na tus sida loo apply gareeyo shaqada oo email-ka markii company-ga email-kiisa meesha ku qoran yahay sidaan apply gareynaa ila socod insha Allah hadii laadmo isla socod wanaagsan waxaan ka tusi doonaa hadii aad idmo website-ka ayaan ka tusi doonaa okay meesha waxaan ku qoraynaa insha Allah hadii laadmo top 10 companies or corporations in Yukon Canada qoraan ku qoraba marka waxaan raadi doonaa hadii laadmo companies-ka okay maxaa dhahay top companies in Yukon Canada ma ugu dhufay insha Allah hadii laadmo okay ونو صباح يا كده إن شاء الله دينا كده وحنا نسينا يا كمبنياش الليست جودا يونسينا يا مركا كمبنيا أتتغير هرو أدي سمركانو كله سؤالك هذا وحده تاعه كله banks and credit union أيا ليلا كمبنيا سو كله هرا يدرسوا عن سعديات شقوين أترتب سؤالك كله لحد accounting أما banking and finance وحنا على سعديات تادين يسوع كمبنيا مثل محل هذا CIPC أيا ليلا سما CIBC أوكي جوجل وحفرنا يا إن شاء الله دي لما جوجل ريسيرش كلا ينسمي سنة يا هدينا نأكينا يا لقيا بواي حتى كوري يقول على أصحاب تقرب سؤالوا هنا يا مركب محل CIBC وايد هرتم جد نقول في وكاس أوكي مركا اسمها US أوكي US أخبار هذا ماشي سوكله حقوق الدومين إسكنداف كده بهذا صعب CIBC فيسبوك محللة حس كتير official أوكي مركا هرابا نقول فتي أوكي US لكن مرة ما US online account fraud blah 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 CIBC أوكي أنت بنقول أوكي واك here it is مركا تسانو كلا أوتيمادو كمبني وحوليه هاي
wax la yiraahdo company walba wuxuu leeyahay shaqo hadduu shaqo markaas ka banaan hore ayaa uga soconaysaa hadda meesha search ay ku qoranta soo majeedo dhanba warwareerinba search meesha ku qoranta jobs ku dhufanaysaa company aan shaqada ka apply garay ugu tala galay ma company aan laakiin haddana waxba aan ka raadinayna aan ka fiirina waxaan tusaa sida loo sameeyo ma fahanti okay hadda maxaa you can try to check me spelling okay jobs aniga jobs aan ku qoray okay marka jobs meeshaan ku yaalin career midda career meesha ku qoranta career iyo jobs waa isku mid way fahantanayaan baa in soo dhaweeyso ma soo dhaweysmaayo laakiin si kale aan soo dhaweynaya insha Allah diilano career si ariga san rabaa inaan soo ay dadka qaar aan aqoon la'aan kalena ma jirtay waxaan ka hadlayaa calashaan inaysan anigu ma isticmaalo ereyga career ma isticmaalo waa kaa mujida waa ereyga aan hadda highlight garay doono kana qaadi doono highlight garay doono shaqooyin ayaa loo jeedaa way fahantanayaan maleynaya okay marka aan ku asagan ku dhufsanayna insha Allah diilano marka company-gaas maxaa shaqo ka banaan hadaba company-gaas ay maxaa shaqo ka banaan aragno bal okay closing la meeshaan hoose oo soo dhigay okay shaqooyin maxaa ka banaan markaas wuxuu yiri wuxuu yiri find about your opportunity okay marka uu siinaa insha Allah diilay list ayuu ii dhiibaya okay maxaa ku qoran meeshaas universal banker ayaa ku qoran okay qofkaas shaqadaas ayaa ku qoran kadib tan waxaa ku qoran financial service representative business financial representative haddii aad shaqooyin la xiriira aad ka rabto fiiriya waxaan ku sheegay haddaad shaqooyin la xiriira accountingka bankinga ama macnaha maxaa lahayaa aad taqaana teknolojiyadda la xiriirta banking and financing website-kan oo kale ayaad imaanaysaa okay waad aragtaa Soomaan kor hoose ayaad wadaysaa shaqada markaas ka anfacda ayaad ka apply garaynaysaa midda kale emailka meesha ayaa ugu qoran tusaale kale say apply garaynayaan meeshaan oo kale fiiriya سمجد هذا حلو ده ماشي أنا كله please contact information كا فيريا وأنا تسوي فيديو كوري سيدا ولا contact كراي دتك سماه مركب contact هالك سياد قف كان لحد ريال وهذا سؤال قبته هذا سؤال كله قف كسمير يسأل هذا ماليبو x.career قف مقعد شوية علشان قف إيميل شوية إن كمبري إيميل أوكي إن كده كان يتسو واحد سمعني ساعة سؤال كانوا أمكانه الحديث إن شاء الله دي لأن وحكبر ماشي if you need accommodation حلو جدا حتى تقف حق قلدين أما معناه محلها أي حنوصن أما سكر الله هايو وحل حديث قف كسر الحديث قف علشان وحق قلدين disable حتى حق قلدين عندهم قف disable كحب كم قلدنا لكن وحنا جدا هديات هاي قف باهي جوني وحل هذا قف كلوبت كجان قف كعنت كجان قف كدهلا أو باهي العاوي أوكي marka ka la xiriiraysa oo gawaad faanteeliyaan filan asxaabi marka shaqada information keeda qofkan ay xalinaysa waad weydiinaysaa hadda kor email ayaan say on qof ku weydiinayay inay iga caawin karaan inay siiyaan job offer Soomaan saasoo kale ayaad hadlaysaa waad barinaysaa connections kaaga daadan badan waxa ku masuulta galayaan marka dad badan samay insha Allah diilayno okay marka waa ka noqonaynaa kan diilayno waxaan ku noqonaynaa listkeena ayaan ku noqonaynaa insha Allah diilayno aniga marka waxaan rabay company-gaan rabay ayaan aadayaa okay lablo company kan kale waxa way hadda industry-ga fiiri meesha industry ay ku qoran tahay industry-ga ayaan tusaya industry waxa la yiraahdaa business-ka nooca business-ka oo ay sameeyso company-gaan kale hadda waa accounting Soomaa global da kan hoos iga dhig company-gaan kale wuxuu haystaa 1 2 3 over 10,000 employees ayuu leeyahay sidoo kalena shaqadiisu waa accounting waxa uu qabtaa waa accounting Soomaa company-gaan oo ay ku qoran tahay BDO okay marka haddii aad shaqo accounting waxa saarto ayaga ayaa la xiriiraysaa way faantayaan malayna okay marka asxaabi insha Allah hadii ilaahay ilmo company-gaan u socdayaan aadi doonaa hadii ilaahay ilmo okay كمبيوتر كنا قايلنا يعني marka way raali ahaanaysan waxaan baan wadaa okay company-gaan u socday inta waqti ugu badan insha Allah waa diilaan way waxaan baahnaa shaqooyinka noocan company-yaashan oo dhan dhamaantood shaqo waa ka apply garay kartaa Yukon government oo kale waxba ka apply garin waa Yukon government dawladda waxaan ogaaday dadka ay shaqaalaysiiyaan Yukon government waxa loo jeedaa state-ka ruuxiisa dawladda Yukon ama macnaha maxaa maamul goboleedka Yukon dadka asaga oo shaqaalaysiiya ayaa loo jeedaa okay marka badanka kuwaas habsaani waxaad aadaa company-yaasha gooni loo leeyahay laba ayaan sii aadina meeshaan ku qoran tahay page-kan kuma jira company-gaas aan rabo okay okay Capstone consultant waa kan wabani kan ayaan u baahanahay soo ma jeeda Cobalt waxa la yiraahdaa Cobalt construction company ayaa la yiraahdaa okay marka waan baxayaa ama ayada ayaan magaceeda waan iska copyaysan karaa inkastoo si copy ga yeelinin marka waan ka laabanayaa insha Allah diilaano xagan ayaan tagayaa Google ayaan leeyahay Cobalt wana kana muta construction company in Yukon soo ma jeed waan ku dhufsaday kadib halkan ayuu soo baxay company-ga website-kiisa ayaan raadsanayaa waa ka soo ma jeed construction company Cobalt construction if you can see haddaad arki karin waa ku soo weyneynaya waka ka ayaan ku dhusanayaa insha Allah diilaano company-yaasha noocaana marka ayaan idin recommend gareynaya aniga sababta aan idin recommend gareynaya waxa waa company-yaal dad badan raba waa company-yaal waaweyn waa company-yaal shaqooyinka ay u baahan yihiin shaqooyin aan calashan aqoon aad fara badan u baahnayn waa tusaale kale shaqooyinka ay u baahan yihiin waa kuwana soo ma jeedid qof oo forklift-ga wado qof oo meesha clean gareeyo qof macnaha maxaa lahaay wax noocaas waa qof geeda jaro wax noocaas ay u baahan yihiin shaqooyinka noogu marka jobs meesha ku qoranta ku dhuso ama job sida u taqaan okay marka company-gan waxay sameeyaan aan ku sheegaya company-gan oo kale hadda waxay sameeyaan aan ku soo dhaweeyo mar labaad okay
waxay leeyihiin emailkaas ay leeyihiin marka rasmiga ayaad samaysanaysaa emailka ayaad ku diraysaa kadibna ciwaanka meesha subjectiga ay ku qoran tahay shaqadii magaceedu baad ka dhigaysaa okay shaqooyinka ay hayaan hadaba maxaa kamid ah shaqooyinka ay hayaan hadaba maxaa kamid ah shaqooyinka fiirinayna iga dheere okay marka shaqo kasta oo ay ahaato hadda waxa ugu horeeya shaqooyinkan kala tusaale administrative assistant receptionist qof ah oo dadka kusoo dhaweeya marka qofku rabo kala tusaale in wax loo dhiso qofkii imaanaya meeshan arkaysid waxa weeyaan hakureerin April 23 shaqada maaha shaqada position ke date posted way wali laakiin way jirtaa shaqadii sida ay meesha u dhigan tahay qof qaatay ma jiro waa calashan okay shaqada sida ay u taagan tahay wali okay shaqooyinkaas long time ka taagnaanay ayaana fiicanba okay waayo waxaad waqti u helaysaa inaad wixii hore apply garayso wixii hore inaad samayso okay qofkan oo kale tusaale kale shaqooyinka kale oo dhan way taxeen waxba ma aysan sheegin shaqooyinka kale oo dhan way taxeen tusaale kale kan kale waxa la heavy duty mechanic waa qofka biraha sameeya qof waxay rabaan u sameeyo kale tusaale forklift oo kale u sameeya qof waxay lahayn u sameeyo machineries u sameeyo wax dhan u sameeyo serviceman kan kale waxa weeyaan half on tools waa qof oo asagana wax dayac tiro waa kan waxa waa heavy isku yeesaysaa ka dirsan kuwan waa heavy oo biraha iyo waxa doon ayaa dayactiraysaa trailers ayaa dayactiraysaa trailers waxa la yiraahdaa gaariyaasha waaweyn waxa ku daba xiran jiidayaasha iyo waxa serviceman waxa waa qof caadi oo sidaas ka okay ablikan masaha file occupational first aid okay maxaa marka shaqada la qabanayo traffic control waa qofka gaariyaal badan iyo waxba socdo hada traffic control ka aqoon la soo kala xagada adoo xaga dadkii gaarida meesha marmaraysa dhismaha site dhismaha kala ayaad kala hagaysaa okay cooks and cleaners waxa weyn kana nadiifiyaal iyo cunto kariyaal waxaad cunto u karinaysaa dadka shaqaalaha ah oo company-ga okay construction laborers dadka shaqeeya fundi wastaad macnaha maxaa la dadka caawiya dhagaxda qaad wax walba qaad waa taqaan Soomaa traffic control personnel heavy equipment operators waxa soo dhanayay marka waxaad sameynaysaa tan oo kale hadana fiiri sharp hand waxa la yiraahdaa dadka wax nadiifinaya la yiraahdaa nadiifiyaal weeyaan sharp hand dadka la yiraahdaa tuwariyan sukiyaan okay duties include washing fake dadka gaarida dhaqo dadka gaarida xamaali waay dadka xamaaliga gaarida alaabta ka dejiya dadka dhaqo macnaha maxaa la gaarida waxa soo dhan weeyaan pilot driver kana waxa weeyaan isagana both guidance sidoo kale pilot truck driver waay truck driver ka ayaad hagaysaa meesha gaariga ku baakimi lahaa meesha san yeelaa ayaad hagaysaa skilled laborers waxa waaye dadka xirfadda leh heavy equipment operators waxa soo dhan ay haystaan marka waxaad sameynaysaa tusaale kale tan ayaad apply garanaysaa anu ninkan tan ayaan apply garanayaa raada kan kaliya ma haya shaqooyin badan ayaan ku apply garay shaqada magaceeda ayaan soo koobiyay kadib Gmail ka ayaan imid Gmail ida Gmail kiimo kadib waxaan sameynaa insha Allah hadii la ilmo compose aan la wax kale ma sameynaayo ana dadka qaar sababtay ii weydiiyeen tan ayaan la yaabay okay kadib paste inta igu dhah no tooda ha igu base gareen waxaan ku base gareenaynaa subject ayaan ku base gareenaynaa waa shaqadan rabi Soomaa shaqadan rabi waay marka way arkayaan qofkan cleaner soo rabaa saanu rabaa ay leeyihiin okay kadibna email kooda ayaa ku soo harban noqonayna email kooda ayaan soo koobiyaysanayna email kooda xasuusna waa kana halkaas uu ku qoran shaqo walba email kaas ayaa loo diraa shaqo walba email kaas ayaa loo diraysaa wadi fahantaan gmail kay marka shaqo walba gmail kaas ayaa loo diraysaa soo ma fahmin marka kadib waxa soo upload gareynaysaa meesha attach ay ku qoran tahay ayadan idin soo dhawaadeen okay marka lama soo dhaweey karo laakiin calaamada tag ay ku qoran tahay eeda ku xigta ayaad ku dhufsanaysaa kadib meeshan waxaan ku qorayaa insha Allah hadii la helmo Abdi Hakim okay rasmi iyo okay rasmi ayo okay rasmi waa kana marka rasmi kan ma yahay kadib waxaan leeyahay bis information aad rabto meeshan waad qori kartaa okay su'aalo kale waxaan ayaad qoraysaa hadda kan oo kale email kan qof kale ayaan u diray laakiin waxaan ku leeyahay hi there inkastoo maadaama aan qof magaceeda uusan kamil u sheegin waxaan leeyahay hi there I'm Abdullahi Muhammad I'm looking for construction cleaning why meesha waxaan ku qoray cleaning and cleaners and cookers ama cooks meesha waxaan ku qoran cooks and cleaning jobs okay cooks and cleaning jobs online I was looking for cleaning and cooking jobs and I came across okay magacooda ayaan ku qorayaa waxaa soo maaha Cobalt company meeshaan ugu qoran yahay Cobalt ayaa ku qoran Cobalt jobs I really liked it but I'm now in Canada I'm trying to come to Canada through Yukon immigration pilot but I need a job offer from Yukon based employer is there any way you can offer me a job okay macnaha maxaa lahay rasmiga ayaa dirtay waxaa gaar ah kadib waxaa leedahay hadalkaas oo kale ayaad qoraysaa kadibna send ayaa leedahay
marka qofkaas waan u sameeyay haddii rabaan inay calashaan qofkaas consider gareeyaan application-kooda saas oo kale ay sameyn karaan marka asxaabtayda qaaliga aho kana raalli ahaado desktop-kayga meel walba wax yaalaan waan idinka raaligelinaya marka asxaabay waxaan idinka rabaa inaad dadaashaan runtii oo saas oo kale aad samaysaan shaqadaas ayaa loo apply garayaa khayr badan ayaan kaga tegaya asxaabay waxaan idin rajeynayaa sidoo kale inaad dadaashaan runtii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu